kusaabsan taariikhda waxbarashada dalka Soomaaliya. Taariikhda waxbarashada dalka Soomaaliya waxaa asal u ah kitaabka Ilaahay iyo sunnada Nabiyullaahi Muxamed. Qarnigii ugu dambeeyay ilaa maanta waxbarashada maadiga ee dalka Soomaaliya waxay soo gashay qarnigii 19aad iyo kii 20aad xilligaas oo guddistayaashii reer Yurub ay soo galeen qaaradda madow ee Afrika. waxaa dalka Soomaaliya laga furay iskuulo ay maamuli jireen gumaystayaasha kale ah Talyaaniga, Faransiiska iyo Ingiriiska taasoo lagu bari jiray luqadda dalalkooda iyo cilmiga maadiga ah. dugsiyadaasi waxaa ka soo qalin jiray dad caan ah oo ku noqday Soomaaliya iyo caalamkaba. 20 bishii Oktoobar 1969 markuu dhashtay gacanka waxaa isbedelay dhammaan hab-nololeedkii waxbarashada Soomaalida. 1972 ilaa 1973 waxaa la qoray farta Soomaaliga taasoo bedeshay dhammaan xeerarkii nolosha xeerarkii waxbarashada ee Soomaaliya taasoo bedeshay fartii Cusmaaniyiinta. 1974 ilaa 75 sagaal bilood gudahood waxaa qof ay Soomaaliya ayaa wax ku haysay. 1969 waxaa jiray xukunka markii la wareegisay dowladda dhexe ee Soomaaliya. 1990 dadka Soomaalida ayay dad aan wax qorin. 1973 waxaa la aasaasay oo la yeelay dugsiga tababarka macallimiinta ee Xalale waxaana la dhisay kollejkii Lafooda. 1964 waxaa la aasaasay xarunta horumarinta manhajka Jamaal. 1991 markay meesha ka baxday dowladii Soomaaliya waxaa dalka Soomaaliya kala jihooyin kala duwan taasoo sababtay burburka dalka Soomaaliya. laakiin nasiib wanaag haweeneyda Soomaaliyeed ayaa waxay fureen iskoolo jaamacado sida Ablaalisko iyo jaamacadda Amuud ee Hargeysa. waxaa magaalada Muqdisho ka jiray in ka badan 50 jaamacad waxaana ka mid ah Muqdisho, Jaziira, Banaadir, Salaam, Moor iyo Horseed iyo jaamacadda Soomaaliya. sanadihii ugu dambeeyay waxaa la hormariyay waxbarashada Soomaaliya iyadoo dowladda Turkiga iskool casri ay ka furtay magaalada Muqdisho. kumanaan arday ayaa helay deeqo waxbarasho dalalka Turkiga iyo Suudaan. barnaamijkeena taas ayaa kusoo dhawaatay. wabilaahi tawfiiq.